aqoon-yahan baashi cabdilaahi yaasiin oo ka mid ah aqoon-yahanka degmada sheekh oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay degmada sheekh ee gobolka saaxiil ayaa baaq nabadeed u soo jeediyey xukuumadda somalilan iyo garaadada reer laascaanood ee muddooyinka ugu dambaysaba ay darirta colaadeed ku dhex maraysay degmada laascaanood ee xarunta gobolka sool. sidoo kale waxa uu talooyin iyo hoga tusaalooyin kala duwan u soo jeediyey xukuumadda somalilan iyo garaadada hogaaminaya shacabka reer laascaanood islamarkaana ugu baaqay in aan xabad iyo colaadi aanay keenin xal waara islamarkaana isafgarad iyo wada shaqayn iyo wada hadal lagu dhammeeyo arrimaha kala duwan ee yaalla magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. oo ah oday reer saaxiil ah waxaan doonayaa maanta inaan halka ka diro baaq nabadeed. goobtan aan joogo 3 bilood ka hor ayaa waxa ka diray baaq nabadeed intaan dagaalka laascaanood dhicin waqtigii la diyaar garoobay. runtii kaliya kama dirin, dad badan oo iga aqoon badan baa ka hadlay oo ka digay dagaalka soo muuqda. waxba dheg jalaq looma siin labadii dhinacna dagaalkii wuu dhacay, wax alla wax la faa'iideeyay ma jiro, labadii dhinacba khasaari taagan yihiin. marka bal waxa leeyahay dhaaxay waanada habtee balaan maantana ku dayo, maantana waa ku noqonaya waxa sayday waa la waaya arkay wuxuu baa leedika dhageysan. ugu horeyn 4 eray baan doonaynaa idhaahdo. eray waxaan iftiiminayaa bal waxaan la isku hayay lagu madhay. erayga labaadna waa hoga tusaaleyn, tala bixin iyo duco. aan ku horeeyo iftiimin. horta maxaa la isku hayaa, maxaa lagu dagaalamaya, maxaa la isku dilayaa? waxaan qabaa inay tahay Soomaaliya waynu ka go'aynaa iyo ka go'i mayno. inta la isku hayaa waa inta waa siyaasad, shicib saaya ma jiro. Somaliland hadaf bay leedahay iyo yool ah dawlad la wada ictiraafsan yahay oo adduunka ka mid ah inay noqoto. SSC waxay doonaysaa in Soomaali weyn aanay kala go'in. xataa hadday taasi u suuroobi weydo waxay rabaan in gobolka Sool, Sanaag iyo Cayn ay raacaan Soomaaliya. horta inta la isku hayo waa intaa. haddaba bal aan hoga tusaaleeyo waxay ku dambaynayso. aan ku horeeyo Somaliland hadafkeeda laba wado bay ku gaari kartaa. wada waxa weeyaan iyaga oo SSC ku qanciya Somaliland la wada leeyahay ayay ku gaari kartaa hadafkeeda. hadafka labaad isna wuxuu noqonayaa dagaalka ay maanta ba wadaan oo ay sii wadaan. dagaalkaana waxaan isleeyahay ugu yaraan marka 100,000 oo nin ku dhimato 100 sanana ka soo wareegto ayay yoolka malaha xoog ku gaari kartaa aan la hubin iyo waliba adduun aan dee la qiimeyn karin. SSC iyaduna hadafkeeda waxay ku gaari kartaa 2 qodob. horta qodob baan doonayaa inaan yara faahfaahiyo. qodobkaas waxa weeyaan Sanaag Cayni ha raacaan Soomaaliya. taasi waxay u baahan tahay xad cusub oo la jeexo. xad cusubna suuragal maaha markay runta ku wada hadlayno ama si aqoonteeda aan ku hadlayno. xadad baas uu sameeyeen gumaystayaashii reer Yurub adduunka way qaybiyeen, si fool xun bay u qaybiyeen. Soomaaliya 5 meelood bay ka raaciyeen, adduun badanna saa way u galeen. waa baadil, laakiin baadilkii way sharciyeysteen, sharci caalami ah bay u samaysteen. isaga labadiis qabta lagu kala saaraa, isagay ilaaliyaan. quwadaha waaweyn adduunka dhammaan ay ku raaceen. waxa markhaati ah Soomaaliya marbay istilxadka wax ka bedel waxay qabsatay Ethiopia intay Soomaali degtaba. gacanta markay ku dhigtay Ruushka ayuunbaa keenay dubaabada aynaan garanayn wax dilaya. xadku ku daadiyay khasab waxadka nagu soo idaariyay. waxa leeyahay xadka quwadaha waaweyn adduunka dhan baa ilaashanaya, lamana bedeli karo. dhan kalena way ka adag tahay oo ah dhaqanka Soomaalida.
Soomaalida labada qabiil ee isku jecel hadda xad baan idin kala jeexayaa meel ay ku heshin karaan ma jiraan waayo dhulka qaar gugiina cid baa daaqada jilaalkiina cid baa daaqada dhulka qaar waa la wada daaqaa maanta hadaynu dhahan nuur iyo naaleeya xad baan idin sabaynaynaa macnuhu waa isdila wax kale kuma jiraan marka aniga horta xad cusubi suuragal ma aha waxa idin bannaan laba wado waxa weeyaan in Somaliland ku qancisaan midnimo iyo Soomaali weyn inaad taa ku qancisaan oo olole qaataan waa wado ku gaari kartaan hadafkiina Soomaali weyn hadafka labaadna waa kan daa'imka baa wadaanee dagaalka kaasina waxaan qabaa in uu 100,000 oo nin oo lagu sadqeeyo uga baahan yahay SSC iyo 100 sano iyo adduunka la qiyaasi karay taasi waa iga hor ku tusaaleyn halka loo socdo haddaan tala ku daro Somaliland waxaan leeyahay hadafkiinan dawlad la ictiraafsan yahay ma suuroobay inta xabad ka socoto Somaliland dhexdeeda waxa idin suuroobay ma si hadafka u gashaan u gaadhaan marka hore joojiya xabadda oo wax ay dariiqa ay xabaddaas isku taagi karto hortu yeela SSC waxay tiraahdaa hanooga ka baxaan oo ka ciidamada la kala fogeeyo wala yeeli karaa wixii xabad isku taagaysa in la yeelaa waan ku talinayaa oo bal horta xabaddu istaagto xabaddaas markay istaagto waxa la gudboon Somaliland in ay ku qanciso SSC iyo garaadada Somaliland la wada leeyahay hatta haday ka furso weydo idin kuma taliya la yiraahdo oo bal madaxweyne noo noqdo oo aan dawlad haynaga dubinina waa talo waxaan leeyahay wax alla wixii ay ku suuroobayso inay wado taasa ka fudud tii dagaalka ee 100% ahayd SSC iyadana waxaan leeyahay yoolkiina Soomaali weyn waxa ku gaari kartaan idinka oo Somaliland ka dhex ololeeya oo runtii ku qanciya midnimada sharafta iyo awoodda Soomaalida waxa ku jirta in la midoobo oo aan la kala go'in taayna ku qancisaan maalinta aragtaan majority-na haysataana adduunka weydiisaan afti in afti dadka la weydiiyo halkaas waa dariiq idin furan oo runtii kaasa ku gaari kartaan kaasaan ku talinayaa waxaan kaloo ku talinayaa xabad joojinta ina horta horeysiisaan oo xabad joojin bila shuruuda leeso soo hor fadhiisto oo la wada hadlo aan wada hadallo ma hadii aan heshiino lama heshiin wala uu kala kici karaa dhex baa la qabsan karaa laakiin xabadda joojinaya waxaan leeyahay marka hore xabadda hal la joojiyo dhaqankeenana kuma jirto shuruud Soomaalidu iyagoo istishay iyagoo geel kala qaaday isagoo meedku daadsay ergal isu diri jiray oo la wada hadli jiray waxaan leeyahay wada hadal bilaa shuruuda soo fadhiista kadibna u gudba ina olole qaadaan Somaliland ku qancisaan Soomaali weyn taas taa weeye iyadoo digniina nin caaqil caana oo la oran jiray cigaal qaalib ayaa wax laga dilay laba nin oo walaalahaayeen walaaladii labadiiba wala dilay kibir baa lagu dilay Soomaalida berigii hore talay dooni jirtay cigaal qaalib wuxuu ku soo wareegay uqaasha u dhowdhow oo dhan waxa ku yiraahdaa nimanka labadaadii walaal bedilay adeeg ugu socdaane dagaal oo argooso wuxuu markii u dambeysay u yimid nin aqli badnaa oo la oran jiray Chief Caaqil Xaaji Yaasiin wuxuu ku yiri waniyo geeri baad qabtaa gunnimo ma qabtid hays gumeyn haddaad maanta labadaa jiliba reer sahal isku dhufato oo ismaduuraan berri waxa iman doonta in cid waliba ku soo hungureyso oo geeraaga la dareersado adoo soo taagan ood gumowdo hays gumeynin geeri baad qabtaa tiibu qaatay waxaan leeyahay labada dhinac talada ka godo war hayna gumeynina maanta hayna gumeynina haddii dhan walba boqol ka dhimato dhulkeena cid kale degi doonta ooriyaheena cid kale xiliyoodin doonta waxaan leeyahay hayna gumeynina anigu waxaan qolooyinka riyaha dhaqda hadee jeer waxrada yareer marka ay qooqaan way isdilaan way is ilaawaan
adhiga iskala hadhaan iyagoo cidla joogaba ayay sanqar maqlaan dhinac bay u wada didaan way isku heshadaan way israacaan ilaa adhigay helaan ma kala hadhaan labadaa u xarbaynu nahay kala hadhi mayno kala tegi mayno haddaynu soomaaliya ku noqonno iyo haddaynu somaliland haanaba soomaaliya haddaynu ku noqonno dee caasimaddaynu tegi xamar sidaynii xaafad baynu wada degi waynu isku heshan xataa haddii xaafad inaga mida lala dagaalamo waynu isu hiilin war kala tegi mayno mar haddaynaan kala tegayn afxumadan meediyaa laysku marinaya ha la joojiyo colaadan la abuuraya ha la joojiyo taariikhaan beenbeenta ee carruurta looga dhaadhicinaya ha la joojiyo war meediyahan ha laga maarmo ha la joojiyo siiba haweenka waxa colaadda hubinaya waxa baanaya waxa naqaya waxa la googaradaa qaata rago waa dumar anuu garan maayo dumarku waxay ku falayeen dagaalka waxaan leeyahay dumarow geeyaankiinni unbaa ku madhanaya labada dhinacba geeyaankiinni baa dhimanaya geeyaan la'aan bay idinku dhiciye joojiya oo colaaddana hubinaysan daaya haddaan taariikh yar ka sheekeeyo dagaalkii labaad ee adduunku mucjisooyinku ka tegay waxaa ka mid ahayd markii dagaalku istaagay jarmal dumar baa isugu soo hadhay raggii farakutiris bay noqdeen dumarka waxay sameeyeen mudaharaada waaweyn magaalooyinka waaweyn ka sameeyeen waxayna ragga nolol doono ragga nolol keen taasaa idinku dhici doonta berri ka maalin mudaharaadyo waaweyn bay idin qaban ragga nolol doona idin odhan ragga ha iska dhammaynina dumarow ragga ha iska dhammaynina ragga ku kala guntada weliba jarmalka waa loo hiiliyey si dadban baa loogu hiiliyey maraykanka iyo reer galbeedba waxay geeyeen ciidamo fara badan oo ay badaha dejiyeen iyo dalka gudihiisaba saa dadban baa loogu hiiliyey idinka si dadbanna cid idinku hiilin maysee geeyaankiina ha dhammaynina waxaa idinla gudboon inaad meediyaha baaqnabadeed ka dirtaan inaad kala dhex fadhiisataan inta calaamo cadcad qaadataan dadkan dagaalamaya inaad dagaalkaa joojisaa waa dantiinna ee taa ku tallaabsada waxaan ku soo gunaanadayaa duco ilaahay ninkii xaqle xaqiisa ha siiyo ilaahay haynaga dhigo kuwii aanu isdulmiin ilaahay kii dulmi wada ha fahamsiiyo dulmigiisa oo ha ka qabto allahayow laba talaba tiiroon allahayow noo door allahayow dalkan adduunka shareecada islaamka kii lagu dhaqa ka yaal shareecada islaamka ayuunbaa xadkan beenbeenta inaga rari karaa maamulka keliya ama shareecada keliya maamuli karta waa islaam cid kale oo ku hogaami karta adduunka bilaa xadi ma jirto xadkaasina wuu jirayaa laakiin ilaahay naxariistiisa ka quusan mayno shareeca islaama oo kala qoqobka inaga qaado waynu ka baryaynaa علي أحمد محمد كابه تلفزيون كعالمي بولشا تي في دقمة الشيخ